السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baryahani dambe waxa aad u sii badanayay khatar uu leeyahay baraha bulshadu. Baraha bulshada oo ah tuulo ay dunidu wada taagan tahay ayaa noqotay mid barihii ugu dambeysay khatarteeda leh. Dabcan waxaan ognahay in ka Soomaaliyan dadku ay si khaldan isku isticmaalaan baraha bulshada nooc walba oo ay noqoto daawashada filimaanta xunxun iyo sidoo kale wax walba oo khatar ama markaasi aan u wanaagsanin qofka dhaqan ahaan diin ahaan iyo wax walba oo xataa aan xog soo kordhinaynin. waxa suurtagal ah inuu qofku 24 saac uu haysto telefoonka isaga oo aan kala baxayn wax muhiim ah ama markaasi aan waxba ka dheef qaadanaynin halkaas. haddaba dhibaatooyinka ay soo kordhiyeen baraha bulshadu ma aha mid maanta aynu tilmaami karayno oo waayo faraha ay ka baxeen aad ayna u bateen wax walba. dadkuna waxaad moodaa in ay wax walba caadi ka dhigteen wax iska caadiya, yacni in nooc walba la gaaray qabiil iyo wax walba oo la samayn karo in lagu isticmaalo baraha bulshada, in la isku isticmaalo dhinaca khaldan iyadoo oo markaasi aan dhinaca wanaagsan waxba looga faa'iideysanaynin. dhinaca kale se haddii aan eegno faa'iidooyinka internetka lama soo koobi karo. waxbaad ka baran kartaa, yacni khiyaartaadii ama dadkii faamilkaagii ayaad la socotaa haddii aad meel kale kaga sugan tahay dunidan. waxaana hubaala meel walba oo dunida ka joogtid in aysan maanta ku qabanaynin aqoon la'aan haddii aadan adigu is dhigin. baraha bulshadu waxay noqdeen meel waxna laga baran karo, yacni dhibaatana dadka ugu horseedi karta, sidoo kalena si walba looga faa'iideysan kara. yacni waa dareemi kartaa qof walba aqli lehna maanta uu fahmayaa baraha bulshada waxa ka jira. haddaba ka Soomaali ahaan inagu si khaldan ayaan isku isticmaalnaa. marka hore waa inaan inagu istoosino oo inta badan dhalinyarada wax soo gudbisa ay ka hadlaan dadka hagaan warbaahinta sidoo kale ay dadka hagto oo ay markaasi u sharaxdo bal sida wanaagsan ee dadku wax ku baran karaan. waxaa jira dad fara badan oo maanta internetka yaqaan laakiin aan aqoon lahayn. waxa hubaala dad badan oo jaamacada ka soo baxay oo markaasi waxbarashadaas ay noqoto mid fooya sidii ay ugu foorareen internetkaas isticmaalkiisa. haddaba akhyaarta qiimaha badan waxa wanaagsan baraha bulshada waxa ku jira waxyaabo khayr wacdi iyo diini halka ay ku jiraan wax adduunyo aakhira aan waxba kugu soo kordhinayn. waxaad kaliya u furatay riwaayad iyo markaasi in aad dadka ka qoslisid ama markaa aad wax dhibaato leh ku geysanaysid. adduunyo aakhira wax kugu soo kordhin mayso, adigana markaasi waad ku baaba'aysaa, waanad ku hodmaysaa, waxaana is arkaysaa adoo dhex jooga mawjado badweynta Hindiya. waxaa haddaba inala gudboon ka Soomaali ahaan in aan dhinaca wanaagsan isku isticmaalno. dhinaca wanaagsan waxaan iskaga isticmaali karnaa ganacsi baa laga samaysan karaa, sidoo kale waxbaa laga baran karaa, wax walba waa lagala bixi karaa. haddii aad u baahantiid inaad koorasyo muhiima qaadatid oo markaasi heer jaamacadeed loo geli lahaa waad ka heli kartaa internetka. casharo PDF ah nooc walba leh, yacni wax walba oo niyada ku qabatid baraha bulshada way ku jiraan oo xumaan iyo wanaag bale. qodobadan ka kooban waxaan ugu talagalnay in ay noqdaan kuwo dhiirigelin dhalinyarada u leh in barahan bulshada laga faa'iideysto oo dhinaca wanaagsan la iska isticmaalo. maanta waxaa jira dad fara badan oo baraha bulshada isticmaala oo dhinaca wanaagsan u isticmaala oo bulshada wax qiimo leh u soo gudbiya, halka ay jiraan kuwo kale oo iyagu hayaacada ah oo yacni waxay soo gudbinayaan ka fikiritaanka hal abuurnimo in shaygaad soo gudbinaysid aad maskaxda ku shiishid aan lahayn oo markaasi ku dhufo ka dhaqaaqa, yacni waxay u taqaano Soomaalidu. haddaba iyanu noqon dameer dhaan raacday, iyanu wax walba iska raacin iska qaadan, yacni wax xun iyo wax wanaagsan waa inuu garaad ku shaqeeyo oo markaasi aan maskaxda si fiican uga shaqaysiino marka aan wax dooranayno. hadday tahay wax wanaagsan iyo hadday tahay wax xun inaad iskaga tagi kartid oo aad yeelatid dareen buuxa oo ku aadan waxaas ka hor imanaya oo khatar gelin kara jiritaankaaga, oo khatar gelin kara caqiidadaada, diintaada, dhaqankaaga, wadankaaga, oo markaa u baahan in aad dareen xoog la ka bixisid oo aadan ku wareerin markaasi commenti muuqaalkii noocee ayuu hebel soo bixiyey, yacni maxaa halkan lasoo dhigay, qof hebel muxuu yidhi, heblaayo maxay tiri. waxaas maskaxda bilaadanka waa wax u daran, gaar ahaan muuqaalada gaagaaban oo baryihii ugu dambeeyay aad looga dayranayo in adoo hees dhegeysanaya kor yar soco sida TikTok oo kale
yacni haddana wacdi haddana in yar kor u soco hees balaayo kajin halkan waxaana ka dhacaya yacni maskaxdaasi say noqonaysaa waa khalkhal iyo markaasi in qofku walbahaaro yacni waxba isweydiin waayo oo maskaxdiisa uu si fiican uga shaqaysin kari waayo maadaama program hadduu wax wanaagsan dhegaysanayaba balaayadii ayaa soo martay oo wixiiba qaaday subxaanallah ilaahay inaga nabadgeliyo aad iyo aad ayaan idin salaamayaa mowduuca intan ayuu ku egyahay intaan mid lamid dib ugu kulmi doono sidaas iyo nooli kulante iyo aragti dambe